Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada kooraskeena Adobe Illustrator. Maanta waxaan rabnaa casharkeena inaan ku qaadano sidee loo sameeyaa mockup. Mockup micnaheedu waxay tahay waa project ama design aad samaysay marka aad rabto inaad ka dhigto mid real oo kale ah ayaa waxaa loo yaqaanaa mockup. Maanta waxaan sameynaynaa warqad loo yaqaano letterhead oo designkeena anaga aan leenahay ayaan rabnaa inaan ka dhigno mid real u eg ama mockup ah. sida sawirka idinka muuqato warqadan ayaan sameynay oo waxaa loo yaqaanaa warqadan letterhead. warqadan letterheadka sidan u muuqato ee caadi aan u sameynay ayaan rabnaa inay u muuqato sidan oo kale. sidan oo kale waxaa loo yaqaanaa markay sidan oo kale ay tahay waa mockup oo warqadii caadiga ahayd sawirkeeda caadiga ahaa oo sidaan ahayd ayaa waxaa loo bedelay mid real ah oo sidii caadiga ah ayaa laga dhigay. sida hadda warqada idinka muuqato waxay dul saaran tahay miis, waxaa agteeda yaala telefoon iyo qalimaan wataa oo micnaheedu ka taagan warqada inay tahay mid real ah oo meel taalo oo sawir laga soo qaaday loo maleeyo. marka sidee loo sameeyaa fadlan la soco casharkeena. ugu horeyn shaqada waxaan ka bilaabeynaa. ugu horeyn waxaa soo kacsataa Photoshop markaa soo kacsato sidoo kale waxaa soo kacsataa browserka ama Chrome ama waxaa rabto isticmaal ayaa soo kicinaysaa si aad usoo degsato faylka mockupka. markuu kusoo kaco marka browserkaada qaybta sare ee searchingka waxaa ku qortaa www.freepik.com. intaa ku qor www.freepik.com kadib enter markaa dhahdo waxaa kusoo baxayso qaybtan yar ee laga maamulo ama lagu raadiyo waxaad u baahan tahay. halkan waxaa ku qortaa letterhead kadib gadaal waxaa ka raacaysaa mockup sida idin muuqato letterhead mockup. shay kastoo u baahnaato meeshaas markaa ka raadinayso waxaa raacaysaa in mockup ahaan hadda u baahnaato kale halka ka raaci. business card hadda u baahnaato kale meesha business card markaa qorto gadaal waxaa ka raacaysaa mockup. ID card hadda u baahnaato ID card qor mockup raaci. hadda u baahnaato brochure mockup raaci. okay kadib markaa intaa noo soo baxdo waxaad dooranaysaa PSD sababtoo ah mockupka waxaa lagu shaqeeyaa Photoshop. mockupka kuma shaqeeyo Illustrator. PSD noo dooro kadib waxaa noo doorataa free oo macnaheedu tahay waxaan rabnaa file mockup ah oo free ah oo mockup ah oona PSD file ah oo Photoshopka aan ku shaqeysan karno. kadib intaana kusoo baxayso designka ku qanciyo marka ka dooro. aniga waxaan raadinayaa designka hadda idin tusay inaan halkan kasoo degsado u baahanahay internetka saan u sameeyo mockupka. doos ka soco designada waa kuwan badan yihiin midkaa is leedahay midkaana macquul ah waa soo degsan kartaa. inta waa kuwaay next page weli waan socdaa kanoo kale waa macquul waa degsan kartaa asiga weli waan socdaa. okay ani midka u baahnaa waa kan midka u baahan tahay markaa hesho kale kida ku dheh kida markaa dhahdo download markaa dhahdo waxaa ku dhufataa free download kadib wuu kusoo degayaa. marka hadda aniga wuu ii degsan yahay uma baahno mar labaad inaan soo dejiyo. midka aan soo degsaday keliya ayaan rabaa inaan ku shaqeeyo. marka adi sidaas oo kale soo degso download markaa dhahdo wuu kusoo degaa kadib markaa soo download garayso halkan dambana keen. marka letterheadkeeda aan soo degsaday waa kan waxaa ku qoran letterhead mockup. sidaa markay ku qoran tahay ama aad soo degsato faylkaas waxaa dhahdaa copy sababtoo ah faylka wuxuu yahay zip. waxaan rabnaa inaan ka dhigno sida caadiga fayl caadi usoo kaco. soo koobiyey kadib waxaan halkan ayaa fayl waxaan rabaa inaan ka sameyso folder cusub saan ugu shubo aan halkaas ku furfuro. kadib waxaa dhahdaa folder cusub waxaa noo dhahdaa mockup MC oo soo gaabiyey kadib ku dhufo fur fayl gudihiisa kadib basti ku dheh. sababta aan u sameynay waxay tahay folder cusub inaan sameeyo aan kusoo shubo. sababtu waxay tahay shayga zip markuu yahay markaa u baahnaado inaad kala furfurto wuxuu ka koobnanaa faylal badan
marka failashana badan waxay galayaan folderkii hore oo aan information kale loogu jirin. marka si uusan u galin waxaa tagtaa folder cusub. sida wanaagsan waa samayn kartaa sida laakiin sida wanaagsan waxay tahay folder cusub inaad samaysato kadib aad ku shubto kadib aad meesha ku furfurto kadib waxaad dhahaysaa right click sida zip loo kala furo waa taqaanaa extract here. extract here markaad dhahdo failkii wuxuu suurgelinaa markaan inaad photoshop ahaan usoo kacsan karto image ahaan u arki karto. failkeeni waan furfurnay sida ka muuqato failka kaliya oo hadda wuxuu sameeyay 4 fail kale. taa micneheedu marka waxaan ka hadlay waxay ahayd halka hadda ku furfurto failashan oo kale way kaalumayaan ama meel kale galayaan ama kuwa kale oo hore u jiray ay raacayaan. marka sida u samayso oo ay u furfurto shaqada ugu horeysa waxay ahayd waxaan sameeyay photoshop ku uu noo kacsan yahay. shaqada labaad qaban waxay ahayd freebiga aan waa soo degsanay mock-up-kii aan soo qaadnay fail folder soo u sameynay ku shubnay zip-kan ka bedelnay waxaan u bedelnay si caadi fail ah. kadib waxaad tagaysaa photoshop markaa gasho waxaa soo gelinaysaa sawirkii ku diyaarsana ee aad rabto inaad mock-up ka dhigto iyo waxaa soo gelinaysaa mock-up-kii aad soo dejisay. file open kadib waxaan rabaa inaan sameeyo letterheadkeeda waa kane kili ku leh kadib open. waxaan soo geliyay sawirka aan u baahanahay inaan mock-up ka geliyo. mar labaad waxaan soo gelinaa failkii mock-up-ka file open folderka aan geliyay anaa aqaan desktop kadib waxaan kasii geliyay ama waxaan sii dhigay halkan for mock-up for kid mc4. marka inta kusoo baxdo waxaad doorataa midka ay la socoto bsd waa sida fail caadi ah oo photoshop ah midkaan noo door kadib waxaa dhahdaa open markaa dhahdo waxaa noo soo galaya failkii su-aal ku weydiiya okay dheh waxaa kusoo galay failkeedii oo ahaa mock-up-ka ee aad rabto inaad midka aad samaysatay aad halkan geliso. sideedii ka muuqato warqadan informationna kale ku qoran informationada ku qoran anaga waxaan ku bedelaynaa informationkeeni oo ah warqadeeni caadiga ee saan u taagneed ayaan rabnaa inaan dhigno halkan ku fidino. si loo sameeyo image-kaada caadiga sawirkaada kusoo laabo waxaad ka furtaa qofilkan ka bixi double click dheh kadib okay dheh kadib failkii ku laabo oo photoshopka oo mock-up-ka kadib freebig edit kuwan fur folderadan halkan kuma jiro waxaan raadinaynaa folderka mock-up-ka sameynayo halkan fur letterheadkan fur okay waa kane. sidee ku fahmi kartaa mock-up-ka sheegis falaartaada computerka dulsaar markaad dul saarto waxaa kuusoo baxayo smart object thumbnail. sidoo kale waxaa ku fahmi kartaa haddaad fiiriso halkan iyo halkaas mid miya waa mayo qaybtan waxaa saaran qayb yar oo goosan oo fail camal kasoo muuqdo kan oo kale isku mid miya waa maya. kan haddaa xirno kasoo qaadba kan aan xirno kan fur fail noocaas kuma jiro marka failka u baahnaato ee mock-up-ka ku jiro waxaa ku fahmi kartaa inay la socoto aabe waxaa la socdo calaamadda markaad saarto smart object ku qoran sidoo kale waxaa la socota calaamadda yar kadib markaa intaa hesho mock-up-ka failka ahaa double click markaa dhahdo waxaa dhahdaa okay sidoo kale waxaa sii dhahdaa okay intaan kuu sameeyo waxaa u laabataa sawirka aad rabto inaad mock-up-ka geliso noo soo qaad adoo left click hayo soo jiid xagee dhigaa marka xagee dhigaa halkaa miyaan dhigaa may kan markaa double click soo dhahday wuxuu kuu sameynaa another fail noocan kuu sameynaa failka noocan ayaa warqadii aad rabtay inaad geliso mock-up-ka ayaad halkan keenaysaa waa kan halkan inoo taala noo soo qaad geeskan soo geli
kadib halkan kusii daa kadib markaas aad dhahdo inaad cabirada geeska la ekaysi saartaa waxaa check noo saartaa show transform kadib waxaa dhahdaa geeskan la ekaysi halkaana la ekaysi korna kasoo ekaysi geeska hoosna halkan la ekaysi okay warqad inta ku fadhiis markaad samayso kadib okay noo leh showga jack ka qaad kadib waxaa dhahdaa calaamada cancelka ku dhufo wuxuu ku leeyahay ma waxaa rabtaa inaad designkaadii halkan aad xirto adoona save gareynayo have you changed ma bedeleysaa micnaa qaabka u samaysanayd si aad ugu save gareyso mockupka yes aad dhehaysaa yes markaa dhahdo wuu wadaa shaqadii markuu save gareeyo updating smart objects markuu save gareeyo toos waxaa u tagtaa failkii mockupka kooda soo gelisay ee warqadii hore ay ku jirtay ayaa toos lagu shubaa imageka ama warqadii aan rabnay halkeeba waa halkan ku dhufo okay sidaa idin muuqato warqadeenii aan soo sameynay ama designkii aan lahayn waxaa lagu shubay halkii aan u baahnayn okay intaa markaa samayso intaa ma ku save garinaysaa waa maya kor maxaa ku qoran designed by freepik halkan waa naga qarinaysaa halkan waxaa ku qoran make a mockup ayagana sidoo kale naga qari halkan kore see ku qoranaysaa freepik creditkan calaamada ilaa saaran soomaad isha ka qaad naga qari waa kaa markaa qariso waxaa u baahnana inaan sameyno qalinka makerka ayaa raadinaysaa qoraalkiisa waa kana maker kadib asina jack cut maxaa dhacay qalinka dhanaa qarsoomay jack kusoo celi fur gudihiisa waa harna asiga dhamooda qarinayn waxaa u baahan inaan ka qarino oo keliya textiga inaan ka qarino hagee ka tagaynaa waxaad ka qarisaa halkaas waa halkii uu ka samaysmi lahaa mockup kale double click haddaa dhahdo kale qoraal hor usoo diyaarsatoo kale ama loogadaadoo kale halkaas waa saari kartaa marka awal ilaa saarneed qoraalaa ka muuqday jack isha ka xir si noogu qarsoonto qoraalkii halkaas saarna markeena marka hadda waxaa noo muuqda oo keliya warqadeeni letterheadka labadii qalin iyo telefonkeeni kadib waa noo save gareynaysaa si aan realkii uu noo noqdo file kadib waxaa dhehaysaa save as kadib waxaa dhigataa desktopka edit waxaan ku qoraa magaca waxaan u bixinaa letterhead mc waxaan kasoo gaabay mockup kadib formatka fur png noo dhig as image aan rabnaa inaan soo barigno kadib waxaa dhehaysaa save markaa dhahdo kadib wuxuu dhehaysaa okay markaa dhahdo halkan wuxuu wadaa number oo savin ah markuu boqolka u dhameeyo sawirkii halka aad dhigatay ka raadi waad helaysaa marka hadda keena wuxuu marahaa 98 boqolka markuu geeyo waxaan tegaynaa desktopka sawirkeeni ayaa halkaa ka raadinaynaa okay numberkii uu dhameeyey photoshopka minimize naga dheh kana minimize halkee dhignay waa desktop waa kana noo fur double click okay ujeedaan sawirkeeni ama warqadeeni letterheadkii oo aan usoo sameynay mockupka sidii saxda ayuu noo soo baxay waa soo dhaweysan kartaa si fiican ayaad u arki kartaa wax qoraal kale la socdo male designkeenii maasha allah si real ayaa laga dhigay marka casharkeena maanta wuxuu ahaa cashar aad u xiiso badan oo weliba u baahan ama ay si fiican ugu faa'iideysan karaan qofka designerka ah ama qofka graphic design ku shaqeysto aad waa mahadsantihiin cashirkeeni maanta intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa thank you so much